Assalaamu calaykum. Haddii aad rabto inaad barato xirfadda graphic design adigoo haysan camera ama qalab qaalisan, fiidiyowga adigaa leh. Waxaan kuu sharxi doonaa sidii aad ku bilaabi lahayd adigoo isticmaalaya kaliya mobile ama laptop. Horta marka ugu horeysa waa maxay graphic design? Graphic design waa farsamo lagu naqshadeeyo qoraal, sawir si muuqaal loogu gudbiyo fariimo. Graphic design waxaa lagu sameeyaa xayeysiisyada, thumbnails-ka, logos-ka, posters-ka aad ka aragto online-ka. Waa xirfad, waa farshaxan, waa isgaarsiin muuqaal ku dhisan. Waxaa loo adeegsado graphic design waa Facebook iyo Instagram posts, YouTube thumbnails-ka, book cover-ka, iyo business card xayeysiin iyo waxbarashada. Waxaa laga sameeyaa meelo lacag laga helo sida freelance iyo shirkadaha waaweyn. Qof aan haysan qalab badan ma bilaabi karaa xirfaddan graphic design? Haa, waliba iyadoo sidaas ay tahay ayaad ugu dhowdahay hal abuurka. Waxaad u baahan tahay waa mobile, internet, iyo niyad ah inaad xidhirto xirfadda aad sameyso gudaha gasho. Abyada lagu sameeyo waa Photoshop, kaasoo la micnaa Photoshop iyo Canva ayaa kuu oggolaanaya inaad si bilaash ah ugu naqshadeyso. AI ma baabi'in doonaa design-ka aadanaha? Jawaabtu waa maya. AI waa caawiye, maaha beddel. AI wuxuu kaa caawinayaa inaad ka fikirto midabyada, font-ka, iyo fikradaha design-ka. Hal abuurka iyo garaadka dareenka nolosha weli adiga leh. AI waa qalab kaa dhigaya designer xariif ah oo xirfad fiican leh, maaha mid kaa saaraya shaqadaada. Sidee AI u caawin karaa qofka bilaabaya xirfadda graphic design? AI wuxuu kuu sahlayaa inaad si degdeg ah u barato xirfadda design-ka. Su'aasha taagan waxay tahay sidee AI u caawin karaa qofka bilaabaya? Canva AI wuxuu kuu naqshadeynayaa post-ka. Adobe Firefly wuxuu sawir kuugu sameynayaa qoraal. Logo wuxuu kuu naqshadeynayaa logo adigoo gelinaya magaca shirkadda aad rabto in lagugu sameeyo logo. Waxaana muhiim ah inaad barato qalabkan si aad ugu guuleysato designer. Hadda waxaad ogtahay wixiga graphic design, sida uu ku caawin karo AI-ga, iyo meesha aad ka bilaabi karto. Fadlan like, share, subscribe si oo ka faalo dhankaaga comment-ga